السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. usoo dhawaada kanalkeena hadaad ku cusub tahay saar subscribe haddaad videogan iyo muuqaaladan aad ka heshayna like saar. Maanta waxaynu eegi doonaa 5 shirkadood ee xagga tiknoolajiyadda caalamka ugu horeeya, kuwaas oo ay ku kala awood badan yihiin dhinaca software-rada iyo dhinaca hardware-rada. Shirkadda ugu weyn ama ugu horeysa ama aynu dhaano shirkadda koowaad ee caalamka ugu horeysa xagga tiknoolajiyadda waa shirkadda Apple shirkadda technology ugu horeysa ee xagga caalamka sanadkii u dambeysay waxa ay gaadhay lacag dhan ama dakhliga lacageed ee soo xarooday 2018 waxa uu ahaa $229 bilyan oo dollar. Shirkadda Apple xarunteeda guud ee ugu weyn waxay ku taalaa California ee cariga Mareykanka. Apple xagga dhisaynada moobilada waa shirkadda ugu horeysa ee caalamka amaba tan koowaad ee ugu horeysa xagga dhisaynada mobile kala duwan. Waxyaabaha ay soo saarto waxaa ka mid ah shirkaddaasi iPad, tablet, Mac PC ama MacBook PC, iPod music player iyo iPhone. Waxa kale oo ay sameysaa software-rada ay ku shaqeeyaan qalabkeeda sida iTunes iyo iLife, App Store iyo Safari iyo kuwo kale oo badan. Barnaamijkeeda operating system-ka ee shirkadda Apple ay caan ku tahay waa iOS. Waxa ka shaqeeya shaqaale dhan 70,000 oo shaqaale ah oo caalamka daafaheeda ku kala yaala. Shirkadda labaad waa shirkadda Amazon. Amazon waa shirkadda labaad ee ugu weyn xagga tiknoolajiyadda adduunka. Waxay ka shaqeysaa dhinaca suuqyada online-ka ee loo yaqaan e-commerce, kaasoo ay leedahay platformyo badan oo kala duwan. Sanadkii la tegay ee 2017 waxa uu noqday dakhligii soo galay shirkadda Amazon $177 bilyan oo dollar. Xagga gudaha Mareykanka waa tan ugu ballaaran ee dhinaca ganacsiga. Shaqaalaha ka shaqeeya shirkadda Amazon waxa uu ka badan yahay shaqaalaha shirkadda Apple aynu hore ugu soo sheegnay, kaasoo gaadhaya shaqaalaha Amazon 566,000 oo shaqaale. Shirkadda Amazon xarunteeda guud ee headquarter waxay ku taalaa dalka Mareykanka, magaalada Seattle, Washington. Shirkadda saddexaad waa Microsoft Corporation. Microsoft waa shirkadda ugu weyn ee soo saarta software-rada caalamka. Waxaa la aasaasay sanadkii 1975. Microsoft waa shirkadda ugu faaca weyn ama ugu weyn ee soo saarta software-rada suuqyada caalamka dhinaca kombiyuutarada. Sidoo kale waxa ay ku caan tahay barnaamijyada Microsoft Office, kuwaas oo ay isticmaalayaasha u sahla inay ku soo jeediyaan baahiyahooda dukumentiyada sida Excel, Word iyo kuwa la midka ah ee Office-ka ah. Sidoo kale Microsoft waxay soo saartaa gameska caalamka kuwa ugu horeeya ama waxay kaga jirtaa dhinaca labaad. Microsoft waxay soo saartaa games kala duwan kuwaas oo ku xidhan suuqyada caalamka. Microsoft Console Xbox 360 waxa uu ka mid yahay gameska ay soo saarto shirkadda Microsoft. Tartanka ugu weyn ee dhinaca gameka suuqyada waxa uu ka dhexeeya shirkadda Sony PlayStation, kaasoo soo saarta games. Shirkadda afraad waxaa la yiraahdaa Alphabet. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa dalka Mareykanka, California. Alphabet waxay noqotay hooyada shirkado badan oo ay ka mid yihiin Google X, Calcio, Nest, Google Venture, Google Capital, Fiverr iyo Google. Inta u badan
shirkaddan waxayna ku caan tahay oo hoos yimaada Google, kaasoo ay soo saarto Android waa OS-ka ku shaqeeyaan moobilada smartphone-ka, kaas oo shirkado badan oo moobilada tiknoolajiyada hardware-ka soo saara ay isticmaalaan. Sidoo kale Alphabet waxa ay soo saartaa search engine-ka uu ka midka yahay Google search engine, kaasoo ah number 1 caalamka, kan ugu horeeya marka wax la baarayo xagga internetka. Kan saddexaad, shirkadda Alphabet waxa ay soo saartay Google YouTube, kaasoo isna noqday kaalinta 2 kaga jira xagga search engine-ka caalamka, fiidiyoyada ugu badan caalamkana laga daawado. Sidoo kale Google waxay soo saartaa apps kala duwan, kuwaas oo ay isticmaalaan dad aad u fara badan. Sidoo kale Google Alphabet waxay soo saartay barnaamijyada ay ku caanka tahay ee Maps-ka, kaasoo ka mid yahay Google Map. Sidoo kale Google waxay soo saartay Ads-ka oo inta badan ay isticmaalaan ama ay ku promote gareeyaan dadka businesska kala duwan leh. Google ama Alphabet waxa ay leedahay shaqaale ka badan 80,110 shaqaale oo ka kala shaqeeya daafaha caalamka. Shirkadda shanaad waa Samsung waxa ay soo saartaa product aad u fara badan, kuwaasoo ay ka mid yihiin mobile phones-ka loo yaqaano smartphone iyo TV-yada waaweyn ee casriga ah, taas oo ay heshay ama lagu qiyaasay dakhli dhan $61 bilyan. Xarunteedu waxay ku taalaa dalka South Korea ama Koonfurta Korea. Sidoo kale waxay soo saartaa telefishinno iyaguna aad u waaweyn, taas ama dhinaca smartphone-ka uu tartan aad u weyn oo kala dhexeeyo shirkadda